waa su'aal aad u fiican. Waxaan isleeyahay Soomaalida scholarship-yada aad uguma baraarugsana sababtoo ah ardada inta badan hami inay scholarship-ya helaan ma lahan. Annaga Soomaalida waxaan nahay dad maxaa la dhahaa taqliidiya, qofka ka horreeyay meeshuu maro unbuu marayaa. haddii scholarship qof uu helo Soomaaliya aragto 90% qof kale Soomaaliya kaga sii horreeyay. laakiin scholarship-yadan badan oo adduunka ka jira Soomaalida inta badan ma raadsadaan. wadamada cajiibka ah oo Soomaalida scholarship u ogol waxaa ka mid ah wadamadan Asia fog sida China oo kale scholarship badan oo Soomaalida ka helaan waqtiyada dambe. waxaa jira wadan South Korea ee dhahan oo wadamada adduunka ugu dhaqaalaha badan scholarship-yada Soomaalida u ogolyihiin oo Soomaalida mataqaanaa ka raadsan karaan ka heli karaan. marka wadamadan inta badan waxbarashadooda ku baxa luqadda Englishka ah ardayga scholarship-ka waxyaabaha ku qaadan waxa kamid waxay u baahan yihiin luqad English inuu qofka yaqaano. in luqadda qofka Englishka yaqaano waxa cadeyn ka noqon kara imtixaanaadka caalamiga oo Englishka qofka inuu qaato sida TOEFL exam ama IELTS examada kale oo lamidka ah. marka Soomaalida inay scholarship diyaar u ahayn waxa garanaysaa inta TOEFL iyo IELTS raadinaysa aad u yirihiin. marka haddii qofka grade-kiisu fiican yahay oo meelaha kale maxaa la dhahaa examadan haysta waxaan aaminsanahay wadamo badan oo xataa Europe tan fog iyo Europe tan caadiga dhow oo East Europe tan in wax laga helayo scholarship, Europe tan kale talaftikooda laga helayo, Ingiriiska iyo wadamada kale dhamaantood scholarship bixinayaan. marka Soomaalida dhinacan scholarship-ka si guud ahaan aad uguma baraarugsana, aadna uguma warqabaan. hadda tusaale ka soo qabo scholarship-kan oo Turkiga ay bixiyaan oo YOS exam ay dhahan waa scholarship aad u fiican. inkastoo hay'adaha inta imtixaanaadka qaada ay wax badan ayaga maxaa la dadka ku adkeeyaan, laakiin waa exam fiican ee ardada haday galaan ay kaga bixi karaan. marka exam-kan hadda YOS exam-ka oo kale waa imtixaan oo u galayso laga qaado ardada ajnabiga ah oo Turkiga joogo, sidoo kale dibadda jiro wadamada adduunka oo dhan ay u furan tahay oo imtixaanka gali kara. ardayga imtixaanka ku guuleysta wuxuu opportunity u helayaa scholarship oo lacag yar wax ku barto. waxaa dhici karta inuu helo chance uu medicine sanadkii $100 ku baranayo ama IT uu sanadkii $50 ku baranayo. sanadkii $50 marka bisha usoo ka dhigto ama $100 marka bisha ka dhigto adii lacag $5 $6 oo kala bishii wax ku baranaysaa, which means almost Soomaali ahaan hadii uu $10 ajnabi wadan dibadda wax kaga baro waxay la mid tahay wax lacag la'aan ay la mid tahay. marka scholarship noocaas oo kale way jiraan oo Soomaali laakiin kuma baraarugsana. waxbarashadii oo dhan hadda dib aan ugu baraarugnay. marka waxaan rajeynayaa sanadaha soo socda in Soomaali badan ay ku tartami doonaan scholarship-yada adduunka jira. niyahow dadkanagu aad uguma baraarugsana hawshaas oo maaragtay sidii loogu baahnaa ugama faa'iideystaan. horeyna dee dhibaatooyin badan baa deeqaha waxbarasho u soo gaaray oo aan kuu sheegayo oo ah gacan bidixaynta dadkii gacanta ku hayay ay ku sameynayeen oo dad maaragtay la qaraaba oo laga yaabo inayna u dhameystirnayn awoodaha ay uga faa'iideysan lahayn deeqaha ay siinayeen, qaar lacag darteed ay u siinayeen. marka waxaas oo dhan waxay keeneen dadkii fitka u ahaa ee aqoonta lahaa ee dadaalayay ee indhuhu ka soo dhaceen say wax u akhrinayeen say u dadaalayeen ay ka niyad jabaan deeqahaas waxbarasho. qofkii haddii una hanti haysan ama nin ay qaraabo yihiin haddii una systemka markaa gacanta ku haya howlahan uusan ku jirin waxay keentay in niyad jab badan uu ku dhaco. marka niyahow sidii la rabay uga baraarugsanaa ama dadkii ku baraarugsanaa ma haystaan access ay uga faa'iideystaan. sidaas oo kalena ma jirto meelo badan oo maaragtay laga helo deeqahaas waxbarasho oo dadku ay ku baraarugsan yihiin oo banaanka yaala. cidii aragtana ma aragtay iyadoo xataa u baahnayn waxa laga yaabaa in si maaragtay fudud ay uga hoos baxdo. marka waxaan oran karaa sidii loo baahnaa ama sidii la rabay looguma baraarugsana deeqahaas waxbarasho ee dawladaha iyo maaragtay hay'adahaas ay dhiibaan.